السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغيارته سودو هذا مركله برنامج كله iyo Kista TV barnaamijkeena maanta insha Allah taala waxaan rabnaa inaan ku qaada dhigno arrin ka soo kordhay xaqi taraga oo ku saabsan kuna kooban state-ka la yiraahdo Arkansas ayaa waxa ay wadaa hindise sharciyeed ay rabto in ay implement garayso ama ay dhaqan geliso oo la yiraahdo Secure Roads and Safe Trucking Act of 2025 ay rabaan inay dhaqan galiyaan biilkan marka magaciisa waa HB 1569 haddana wuxuu marayaa sharci dejiyaasha legislatorka state-ka buu dhex marayaa biilka marka qaybo waxa jirto already ay dhaqan galiyeen oo aan rabo inaan idin la wadaago iyo qaybo soo socdo oo aan rabo iyaga naftooda inaan idin sheego waxa afarta qodob oo ay damacsan yihiin oo biilkan ama qaraarkan uu ka kooban yahay dhex maraya hadeer state legislator-ka ama sharci dejiyaasha Arkansas haddaan ku bilowno state-ka Arkansas wuxuu soo wadaa barnaamij ah in qof kasto waan sharciga qaybta koowaad ay u baahan yihiin ama qasab ay ku tahay qof kasto oo gaari ku dhex wada truck ah state ama commercial ah state-ka Arkansas waa in uu haystaa license 50 states-ka dalka Mareykanka laga bixiyo ama kontonka gobol ee dalkan Mareykanka waxa lagu dari karaa oo extra ku ah Washington DC District of Columbia baa la yiraahdaa ama wadankan yar oo hadda ay la soo wareeyeen oo la yiraahdo Puerto Rico ama Puerto Rico mid u taqaanaba so hadduu laysinkaaga uusan ahayn kontonka state oo uusan ahayn Puerto Rico iyo Washington DC ganaax ayaa jiro haddaan idin sheegi doonaa insha Allah laysinkaaga waa in uu ahaadaa license ay bixisay 50 states-ka ama Washington DC iyo Puerto Rico kasoo gudub dadka haysta viisayaalka dadka viisaha haysta oo ku shaqeysta dalka Mareykanka viisooyin waxa jira B1 iyo B2 la yiraahdo oo dadka taraagada iyo waxaas loo keeno ay ku wataan taraaga so dadkaas na way joojinayaan laguma arki karo adigoo gaari ku wada visa na dalka ku jooga oo viisaha B1 iyo B2 iyo B1 iyo B2 oo la isku daray intaba ku jooga waxa laga mamnuucaya dadkaas in ay gaari ku wadaan commercial ah state-ka Arkansas ama Arkansas midka u taqaanidba marka ganaaxa muxuu noqonayaa penalties-ka waxay noqonaysaa hadii lagu qabto adoo laysinkaaga uu yahay hatta Canada of course hatta Canada iyo Mexico labadaas baa hadda laysinkooda intii toos ula soo galaan dalkan truck ku dhex wada dalka Mareykanka Arkansasna waxay ku taalaa meel wadnihi ah oo I40 iyo I55 inta way maraan wadooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka isaga goosha way maraan so waa meel aad iyo aad muhiim u ah maritaankeeda oo state-yada koonfurta south-ka ayaa laga galaa marka waxay yiraahdeen hadii lagu qabto adiga oo license Mareykanka laga bixiyay aan wadan waxa lagu ganaaxayaa horta gaariga waa laga qaadanayaa waa impoundment of commercial vehicle ilaa kambanigi uu iska lahaa uu imaado lacag fara badan oo $10 ahna laga qaado so gaariga waa laga impound gareynaa waa laga qaadanayaa waxaana lagu ganaaxayaa $5,000 qofka gaariga waday oo laysinka Mareykanka ka imaaday aan wadan waxay sheegayaan marka sharcigan hadii uu sida la sheegayo uu dhaqan galo qaybo hadda dhaqan galay way jiraan oo aan rabo inaan hadda idin sheego insha Allah oo next balkiya laakiin hadduu hadda dhaqan galo laysinka Canada ma tixgelin doonaan state-ka Arkansas waana Arkansas kaligeed state kale oo la qabto ma jirto 49 state oo kale sharciga qaybta labaad oo aan rabay oo hadda already dhaqan galay oo hadda darawallo fara badan ay ii sheegeen in ay 3 beri la soo dhaafay ay la kulmeenba way stationada meelaha gawaarida lagu baaro trubero caadiya oo wadada intay kala baxaan ku istaajisanayo ay ii sheegeen dad badan baa soo aan la xiriiray oo waliba Soomaali ah su'aalahan in la weydiiyay waxa ay sheegeen in luqadda Ingiriiska aad taqaanid inaad qori kartid inaad akhrin kartid inaad calaamadaha aad akhrin kartid marka waxay sheegeen English language proficiency wax la yiraahdo in luqad kugu filan waa inaad taqaanaa hadii
marka dhalinyarta hadda waxay ii sheegeen inay dhowr su'aal oo yaryar ay weydiiyeen 3 su'aal like intee ku dhalatay citizen ma tahay iyo laysanka meeqa sana haysatay sida uga jawaabtay fiirinaya marka haddii luqadda qof yaqaano oo caadi normal ay u tahay aad tahay and then there's no problem laakiin haddii arkaan inaad gajagajaleynayso wuxuu ku siinayaa warqadda waxaa ku qoran read road signs and warning signs wadooyinka inaad akhrin kartid oo calaamadahaas hadda gadaasheeda ku yaalla oo kale aad garan kartid waxaa la rabaa inaad fahmi kartid traffic control devices stop signska iyo lightska iyo waxaas inaad fahmi kartid iyo in aad si haqab la'aan ah aad ula hadli kartid oo aad hadalkaaga ku bogan kartid ambalaasyada iyo emergency serviceska booliiska law enforcementiga iyo darawallada kaleba inaad luqadda aad ku hadli kartid oo aad noqoni kartid akhrini kartid aad fahmi kartid calaamadaha so sharcigaas hadda already way dhaqangeliyeen dad fara badan bay ku istaajiyeen arrinkan isaga ah haddii marka luqadda aadan si fiican u aqoon oo waxa laga rabo aadan ama su'aalaha lagu weydiinayo si fiican uga jawaabi karin ama warqadda yar oo la buuxinayo aadan buuxin karin wax yar baa lagu qoraya sentence yar buu ku weydiinaya si uu u arko inaad proficient ah ku tahay just enough ka raba laakiin haddii luqadda aad garan weyso oo aad gajaalayso ganaax $5,000 ah ayaa lagu ganaaxaya adaana bixinayo weliba waxay sheegeen in on the spot ay tahay meesha aad ku bixinaysid lacagta haddaa lacagta aad bixin kari weysana xabsiga lagu dhaadhicinayo qodobka saddexaad waxay dhaheen waxay dembi ay ka dhigi rabaan haddii qof aan dhalasho haysan non citizen or license non-citizen without a US issued like qof Canada u dhashay oo kale ama Mexico u dhashay haddii shil intuu galo qof uu dhaawac u geysto waxay sheegeen in qofkaas asagoo gaariga wada lagu charge garayn doono oo dacwad lagu soo oogi doono class D felony dambi weyn kaas oo ugu yaraantii markay ugu yartahay D-da markuu yahay feloniga markay ugu yartahay 6 bilood baa lagu xiri karaa bay yiraahdeen iyo wixii ganaaxa oo la socdo haddii adigoo gaari wada oo laysin Mareykanka ka imaadayna aan wadanin oo ama Mexico san sheegay ama Canada wata aad qof dishana taas iyada waa class D waxaan ka rabaa class B baa laga dhigayaa felony 10 sano ugu yaraan baa lagu xiri karaa marka company-ga haddii qof luqadda aan aqoon oo aan proficient ku ahayn laysin stateka Mareykanka laga bixiyayna aan wadanin company-gii hire gareeya marka penalizes trucking companies kambaniyada waxaa la ganaaxayaa oo siiya shaqada qofka ineligible ka ah marka ineligible waxay u yaqaanaan qof aan u qalmin in la siiyo shaqada sababtuusan ugu qalminna waxa waaye A luqadii ma yaqaano B laysin Mareykanka ana ma wato ama C wuxuu ku joogay dalkan visa ku joogay kambaniga waxaa la ganaaxayaa $10,000 waana on the spot meesha inuu ku bixiyaa so qaybta luqadda inaad taqaanid already dad ay ku bilaabeen so way dhaqan gashay kuwan kalena way soo wadaan waana stateka Arkansas kaliya horey marka hore isaga dhibadnaayeen oo way stationkooda iyo waxooda isaga furnaan jiray laakiin hadda waxay ku soo dareen in arrimahana biilkana ay baasiyaan marka biilkan waxay ugu talagaleen in wax looga qabto public safety-ga ama badqabka shacabka waxay ku andacoonayeen nin hadda ka hor dad ku jiray stateka Colorado bay waxay ku sheegeen in haddii luqadda uu garan kari lahaa wuxuu arki lahaa meesha taraaga markuu break la'aanta ka noqdo lagu cararo runaway truck ay galaan marka runaway truck meeshii ay galayeen way garan lahaa bay yiraahdeen haddii calaamadaha uu garan karo luqaddana uu fahmi karo waxna uu akhrin karo so waxay dareensan yihiin in dad fara badan ay laysanka ku soo qaateen turjubaan dad fara badan ay laysanka ku soo qaateen dadkaasna Soomaalida uma badna haddaan idin sheego dadkaas Soomaalida uma badna Soomaalida most of them luqadda way ku fiican yihiin wayna yaqaanaan laakiin qof iyo laba iyo saddex iska jira ay yara dhibayso so stateka Arkansas sharcigaas ayaa ka jira sidoo kale darawallada ka imaanaya Canada Soomaali fara badan baa ka timaada Canada oo dalkan ka shaqaysata oo darawallo ka ah so kuwaas naftooda just waa feejignaan iyo digniin aan rabno inaan siino truck driverska stateka Arkansas inuu sheekadan uu keenay wixii su'aalaha hoos ugu weydiin kartaa don't forget to like subscribe
and share the video inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace.